إمام مالك لغوها القبصدي مالك ابن أنس أيها لا يفتى المالك ومالك في المدينة ليري مالك أو مدينة جوغا ننكر علماء إنه فتيوضا أبلو بهايها محاد دعي تميز بموجي علماء حق هذا أدبو يعني أوها أحاديث أدبو أحد سنة وحبا بو أها مؤسسة الإمام المالك جزاهم الله خيرا أدبا نقول مهد علينا يا وحان نقول كدن بيسي أنكو كولاني tartankii universal oo iskuulada magaalada muqdisho loo qabtay waxay kaalinta koowaad ay ka galeen tartankaas waxaan leeyahay hanii'an lakum idinka iyo mataqaana ardadiina iyo waalidiintaba aad baan ugu hambalyeynaya kaalinta koowaad waan joogay jaamacadda muqdishona waxa way 3 kaalimood ayay abaal marinaysay marka iyada waxay ku heshay ma aha xataa waa ku siiyay iyo waa ku yani minxan ku siiyay waxay ku heshay juhdigeeda iyo cilmigeeda iyo dadaalkeeda iyo kartideeda ku heshay marka waxaan dhihi karaa muassasatul imaam al-malik waxa way ka soocan tahay wax badan bay ka soocan tahay madaarista kale aadaan ugu mahadcelinayaa labo waxa aan rabaa inaan aad iyo aad aan ugu mahadceliyo maanta si gaar ah waalidiinta maanta qaarna meesha fadhiyaan qaarna naga maqan yihiin ee 295 arday soo barbaariyay kuna aaminay markay sidaa u fiiriyeen magaalada ay yiraahdeen walle caruurteena iyo ubadkeena waxaan ku aamini karnaa muassasatul imaam malik marka aadan ugu mahadcelinayaa maanta miraheedii waad aragteen magaalada muqdishona waad ka aragteen marka waxaan leeyahay fajazaakumullahu khayran ilaahay ha idinka abaal mariyo marka waxaan rabaa ardada maanta qalin jabinaysa inaan iraahdo kelimad koow horta waxa way ilaahay u mahad celiya labo waalidiintii idinla garab istaagay wanaagaas ilaa maanta aad soo gaarteen inaad tiraahdaan jazaakumullahu khayran ilaahay ha idinka abaal mariyo boos janna allah idinku beddelay inaad tiraahdo adigu waalidka inuu dareemo yani mahad celintaada inuu dareemo labo waxaan kaloo idin leeyahay maanta waad soo qaangaarteen dugsi saraad ka baxdeen marxalad jaamacad baad u socotaan waxaa la idinka rabaa in aad naftiina ku kalsoonaataan waxa ugu horeeya oo aad tiraahdaan wixii aad soo barateen maanta ayaad yani kaligiin ismaamulaysaan waalid kama maarantaan laakiin marxalad waxaad gaarteen idinka aad noqotaan dad mas'uul iska ah oo doorata takhasuska aad doonayso lagaala taliyo laakiin adaa dooranaya takhasuskaaga inaad mataqaanaa samayso kana miro dhalisaa lagaa rabaa waqtigaaga ha ku cayaarin ogow ani waxaan ku kalsoonahay ardayga Soomaaliyeed inuusan waxba ka liidan ardada kale caalamka waa la ogaaday IQ-giisa iyo maskaxdiisu inay aad u sareyso waxaa laga rabaa kaliya dadaalka iyo juhdiga inaad la imaato wax allaale wixii caalamka laga bartana waad baranaysaa marka hadduu ilaahay fursad kuu siiyo waddankan inaad ku baratana ku baro haddaad dibadda aad aadana baro laakiin waxaa ugu muhiimsan inaad go'aan leedahay inaad wax barato maanta adaa go'aan iska leh inaad wax barato marka ogow maalintaas haddaad yani go'aankaaga taraddud uu ku jiro 4 sano ma dhammaysanaysid oo wax barasho ah marka go'aankaaga qaado ani waan xasuustaa markaan dugsi sare ka baxay nin professor ila hadlay goonu ila baxay wuxuu igu yiri maanta adaa go'aanka iska leh haddaad dhabar adeegto maalintay hooyo canjeero ku soo siinaysay oo dugsiga iskuulka ku soo diraysay ilaa dugsiga sare waa laga baxay adigaa laga rabaa meel walbo joogo duruuf kastoo jirta haddaad ku tala gashay inaad wax ka baxdo waad baranaysaa waadna la tartami kartaa caalamka marka waxaan ku oran lahaa baro midda saddexaad waxa weeye tacliinta aad baranayso dhab ha ka ahaato يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق كددالا marka si dhaba ina wax u barato haday tahay wax barashadaada sida dhalinyaradu hadda yiraahdaan qoto hadaad rabto meelo badan oo qoto ah jira qoto ha isku aadin waxa isku daydaa si dhaba ina wax u barato si dhaba hadaa wax u barato waa yani sida hadda imaam Malik idin soo shiilay waa shiilmaysaa laakiin bari waxa la tartamaysaa caalamka
shahaadadaada waxay noqonaysaa shahaado alla dhuumata ma noqonayso